رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولو waxaan dhexda uga jirnaa kitaabkii xisn muslimka ducaa istiftaaxi iyo furfurashadii salaada ducadeedii waaye allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya. allahuma ilaahayow baacid dhaqaaji baynii ani iyo wa bayna khataayaaya gafafkayga kamaa baacadta saad u kala fogaysay oo kale bayna almashriqi waalmaqribi. qoraxda meeshay ka soo baxday meeshay u dhacda say u kala fog yihiin oo kale ani iyo dembigayga noo kala fogay. allaahumma ilaahayow naqinii nadiifi min qataayaaya dafafkaygii dembiyaalkayga kamaa yunaqa thawbu sida marada looga nadiifiyo al abyadu ee cad min addanasi wasaqda. marada cad sida wasaqda looga nadiifiyo oo kale marada cad waxay uga gadisan tahay marada guduudan ama midda madowtan cad ma qarsan karta wasaqda. hadday gaarta isla markii in la dhaqo meehee qofka ma kula bixi kara bannaanka. sidaa darteed dembi ii aruura ilaahayow ma rabee isla markii sida dembiga marada wasaqda cad looga nadiifiyo oo kale iiga nadiifi. allaahumma ilaahayow aqsilnii min khataayaaya gafafkayga waxaad iiga dhaqdaa bithalaji baraf waalmaa'i biyo iyo walbaradi biyo qabow. dembigaa waxaa laga dhigaa wax kulayl adag markaa leh xaraaradiisu ay adag tahay waxaa laysugu darayaa baraf iyo biyo caadiya iyo biyo qabow in markaa lagu dhaqo. waxaad kaloo dhihi kartaa salaada markaad furfuranaysa subxaanaka allaahuma wabixamdika. subxaanaka ilaahayow nasahnaashaa kuu sugnaatay. allaahumma ilaahayow wabixamdika watabaaraka ismuka magacaagaa khayrkiisa batay watacaala waxaa kor ahaaday jadduka ammaantaada iyo sharaftaada walaa ilaaha khayruka ilaah khayrkaa ah oo adi kaa soo harayna ma jiro. waxaad kaloo dhahaysaa markaa salaada u furfuranaysa wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalardi. wajahtu waxaan u jiheeyey wajhiya wejigayga liladii macbuudkii fatara asamaawaati samaawaadka abuuray iyo waalarda arlada xaniifa wamaa ana min almushrikiin. xaniifka waa qofka adyaan iyo diin kasta ka soo iisho islaamka u soo iisha kaasaa markaa loola jeedaa mid xaniifa anigoo ah oo baatil iyo xumaan iyo shirki ka soo leexday. wamaa ana anigana ma ihi min almushrikiin mid mushrikiinta ka mida. ina salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridayda lilaahi ilaahay ayay u ahaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda laa shariika lahu wax la qaysado oo shirki kula leh ma laha. wabidaalika arrintaa shirki la-aanta ayaa umirtu lay amray wa ana aniguna min almuslimiina muslimiintaan ka mid ahay. allaahuma ilaahayow anta almeliku alla meliga oo boqora ayaa tahay. laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jira. anta rabbii rabbigay ayaa tahay. wa ana cabduka aniga addoonkaagii ayaan ahay. dalamtu nafsii naftayda ayaan dulmiyey. wactaraftu waxaan kuu ictiraafay bidembii dembigayga ee fakfir lii ii dhaaf dunuubii dembiyaalkayga jamiican dembigayga oo dhan ii dhaaf. innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta waayo axad dembi dhaafoon adi ahayn ma jira. wahdini ilaahayow igu hanuuni liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda midda ugu fiican. laa yahdii liaxsanihaa wanaageeda qof kuma hanuuniya ilaa anta adi maahanin. wasrif ilaahayow iil cannii xaggayga sayi'aha nafteeda xumaanteeda waayo laa yasrifu cannii
xaggayga kama dadbi kara sayi'aha xumaanteeda ilaa anta adi maahani labbayka wa sacdayka ku ajiibay ilaahayow labbayka waa ku ajiibay wa sacdayka waa ijaabo ka dambaysaan ku ajiibay waalkhayru kulluhu biyadayka khayrka oo dhan gacmahaaga ayuu ahaaday waasharu laysa ilayka shartu xaggaaga ma ahaanin ana bika ani adigaan kuu suganahay wa ilayka xaggaagaan u soo noqona tabaarakta wa tacaalayta khayrkaagaa batoo waad kor noqotay astakfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayka xaggaaga ayaanana markaa u tooba keenayaa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma rabba jibraa'iil ilaahayow oo jibriil rabbigiisa ahaw iyo wa miikaa'iila wa israafiila jibriil iyo miikaa'iil iyo israafiil waa annabiyaa waa malaa'igta saddex ka mida faatira asamaawaati waalardi samaawaadkii arlada allaha abuurayow caalima alghaybi haybka allaha og iyo washahaadati waxyaabaha xaadirka ahow anta taxkumu mid xugminaya ayaa tahay bayna cibaadika addoommadaada baynkooda fiimaa kaanuu wixii ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa markaa isu khilaafay ahdini ilaahayow iga hanuuni lima khtulifa fiihi wixii laysku khilaafo oo min alxaqi xaqa ah biidnika adi idinkaaga ilaahayow igaga hanuuni innaka adiga tahdii waxaad ku hanuunisaa man tashaa'u qofkii aad doonto ilaa siraatin mustaqiim jid mustaqiima oo toosan wuxuu kaloo qofku leeyahay allaahu akbar kabiira allaahu akbaru kabiira allaahu akbaru kabiira 3 mar walxamdu lilaahi kaiira ilaahay ayaa mahad iskale mahad badan walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira 3 mar وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مر إلهي أيان سهن وسبحان الله إلهي أياه فنون سهن بكرة وأصيلا صبح يا قلب أعوذ بالله إلهي وحنك مغنقلي من الشيطان شيطان كحقيس من نفخه أفوفديس ونفخه من نفخه وسواسديس ونفخه أفوفدانكيسي وهمزه همزيgiisa iyo xumaantiisii waswaasintiisa oo dhan ilaahay ayaan ka magan galay allaahumma wuxuu kaloo dhahayaa qofka ilaahayow laka alxamdu mahad adiga iskale anta nuuru samaawaati waalardi allaha samaawaadkii arlada nuuriye ayaa tahay ama nuurkoodaa waman fiihinna iyo waxa dhexdooda ahaaday walaka alxamdu adigay mahad kuu sugnaatay anta qayimu samaawaati waalardi qayimu samaawaati ayaa tahay midka samaawaadka u qumay iyo arlada oo maamula oo qayimkooda ah iyo waman fiihinna walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay anta rabu samaawaati waalardi ayaa tahay iyo waman fiihinna walaka alxamdu laka waxaa kuu sugnaaday mulku samaawaati waalardi iyo waman fiihinna walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay anta meliku samaawaati waalardi ayaa tahay walaka alxamdu mahad adig kuu sugnaatay anta alxaqu alla xaqa ayaa tahay wa wacduka alxaqu yaboohaagu waa xaq waqawluka alxaqu waliqaa'uka alxaqu liqahaaga iyo la kulankaaga waa dhab waljannatu xaqu wannaaru xaqu jannada iyo naartu waa xaq wannabiyuuna xaqun nebiyaashu waa xaq wa muxammadun sala allahu calayhi wasalam xaqun nebigana waa xaq wasaacatu xaqu saacaddu waa xaq allaahuma laka aslamtu ilaahayow adigaan isu kaa dhiibay wa calayka dushaada ayaan tawakaltu tala saartay wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday wa bika khaasamtu ay wa bika wa bixujatika xujadaada ayaan khaasamtu ilaahayow kula doodayaa gaalada wa ilayka xaakamtu
xaggaagaan u soo xukuntamay faqfir lii ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah wamaa akhartu waxaan dibdhigsaday wamaa asrartu iyo wamaa aclantu waxaan sirayaystay iyo waxaan muujistayba anta almuqadimu wa anta almu'akhiru alla dibdhiga iyo mid hormariya ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee alla kale ma jira anta ilaahii adiga ilaahaygii ayaa tahay oo laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee ilaah kale uusan jirin ducaau rukuuci rukuucdii ducadeedii waaye marka aad rukuucsan tahay waxaad dhahaysaa subxaana rabbiya alcadiim 3 maraatin 3 mar ayaad ku soo celcelinaysaa subxaana rabbiya alcadiimi waa sida ugu saxiixsan in intaa lagu ekeeyo subxaana rabbiya alcadiimi oo wabixamdihi aan lagu darin riwaayadaha gobol ayaa ku daray wabixamdihi subxaana rabbiya alcadiimi rabbiga cadiimka ah ama rabbiya alcadiimi rabbigayga cadiimka ee weyn ayaa nasahan rukuucda waxaad kaloo ku dhihi kartaa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii subxaanaka allaahuma rabbana ilaahayow adigaa nasahan wabixamdika bahadna adigay kuu sugnaatee allaahuma kfir lii waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa subuuxu quduusu rabbulmalaa'ikati waaruuxi taana waad dhihi kartaa ilaahay ayaa nasahan oo tahiran oo rabbulmalaa'ikati waaruuxi malaa'igta rabbigooda iyo ruuxa rabbigiisa ah ruux waa malakul jibriile waxaad kaloo rukuucda ku dhihi kartaa allaahuma laka aslam allaahuma laka rakactu ilaahayow adigaan kuu rukuucay wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adigaan kuu islaamay khashaca laka samci adiga ayaa dhegahayga ay kuu qushuuceen iyo wa basarii araggayga wa mukhii dhuuxayga iyo wa cadmii lafahayga wa casabii xididadayda iyo wamastaqalla bihi qadamii wixii lugahayga cusleeya oo dhan waa jasadkiisa oo idil waxaad kaloo rukuucda ku dhihi kartaa subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati waxaa nasahan allaha jabaruudka u saaxiibka ah diljabaruuti jabaruudka waa allaha cadamada iyo weynaanta u saaxiibka ah waalmalakuuti hanashada iyo maamulka midka u saaxiibka ah iyo waalkibriyaa'i isla weynida iyo kibirka ilaahay ayaa iskale casiizu ljabbaaru lmutakabbir waa alla isla weyn subxaana wa tacaala iyo waalcadamati cadamada iyo weynaanta ducaau rafci min alrukuuci marka rukuucda laga soo rafacaya ama laga soo kor noqonaya wixii lagu ducaysan lahaa samica allaahu liman xamidahu ilaahay waa maqlaa dheh qofkii mahdiya rabbanaa walaka alxamdu rabbigeeyow adigay mahad kuu sugnaatay xamdan kafiiran tayiban mubaarakan fiihi mahad badan oo tiib leh oo barako ku dhex jirta waxaad intaa ku dari kartaa mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wamaa baynahumaa وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد sidaana waad dhahaysaa mil'a asamaawaati ayaad rabbiyow mahad leedahay samaawaadka mulkin maaha inta buuxisa iyo wa mil'a alardi iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa iyo wa mil'a maa shi'ta intii aad doonta mugeed oo min shayin bacdu markaa kadib ka gadaal ah oo shay ah ahla ahanaa'i faraha iyo ammaanta ehelkeeda ayaa tahay iyo walmajdi sharafta axaqu maa qaala alcabdu waxaa u xaq badan wuxuu addoonku yidhi wa kullunaa dhammaantaynba laka cabdun adigaan addooma kuu nahay ileen axad ma jira buu dhahay ilaahay ilaa aati araxmaani cabada ilaahay ayuu u imaana asagoo addoon ah allaahuma laa maanica ilaahayo wax mancin kara oo celin kara oo diidi kara ma jiro lima actayta waxaad bixiso wixii alla ku siiyo qofkaa hor istaagi karaa male walaa muctiya axad siin kara malaha limaa manacta waxaad manciso
haddii alla wax kaa manciyo uusan kugu talagelin ummadoo dhan haddii isu timaada ma kuu taagi karaan. walaa yanfacu ma anfacaya daljaddi mid dheef iyo hodantinimo u saaxiib ah dheeftiisa hodantinimadiisa waxay anfacaysa malaha minka aljaddu dheefta adigay kuu sugnaatay iyo sharafta iyo maamulka. intaa waa marka rukuucda laga soo kor noqdo. waa ictidaalka, waa samicallah. ducaau sujuudi, sujuudii ducadeedii waaye. subxaana rabbiya alaclaa waa 3 maraatin, 3 mar allaha sareeya rabbigay ah ee sareeya ayaa nasahan. waxaad kaloo dhahaysaa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii. ilaahayow adigaa nasahan, rabbigeeyow mahadna adaa iskale, ilaahow ii dembi dhaaf. subuuxu quduusu rabbulmalaa'ikati waaruuxi, taana waad dhihi kartaa. waxaa tahiran oo nadiif ah oo hufan malaa'igta iyo malakuljibriil rabbigooda. malakuljibriil malaa'igtuu ka mid yahay, laakiin sharafta uu leeyahay darteed ayaa malaa'igtana loogu sheegay, asagana qaas ayaa markaa loo sheegay. sidaa darteed ayaa meelo badan lagu ammaanaa jibriil. markii ilaahay uu tilmaamayey tanazzalu lmalaa'ikatu, malaa'igtii ayaa soo degta, jibriil waa ku jiraa. waaruuxu si qaas ahna ilaah waa u sheegay allaahuma laka. waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa ilaahayow adiga ayaan sajadtu kuu sujuuday, wa bika aamantu adaan ku rumeeyey, walaka aslamtu adaan isu kaa dhiibay. sajada wajhiya wejigayga wuxuu u sujuuday liladii macbuudkii khalaqahu uumay, wa sawarahu suuradeeyey, wa shaqa jeexay samcahu iyo wa basarahu maqalkiisa iyo aragiisa. tabaaraka allaahu ilaahay ayaa khayrkiisa bato axsanu lkhaaliqiina, inta wax uunta midka u fiican ah. waxaad kaloo dhihi kartaa sujuudda dhexdeeda subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati. waxaa nasahan allaha jabaruudka u saaxiibka ah, malakuutka iyo hanashada, kibriyaha iyo isla weynida iyo waalcadamati weynaanta. waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa allaahuma kfir lii denbii kullah, ilaahayow dembigayga dhammaantiis ii dhaaf. diqahu wajillahu, kiisa diqiga ah waa ka jilcan, iyo wajillahu kiisa xoogan, wa awalahu kiisa hore iyo wa aakhirahu kiisa dambe, wa calaaniyatahu iyo wa sirahu kiisa la muujiyey iyo kiisa sirta ah. ilaahow dembigayga dhammaan ii dhaaf. waxaad kaloo ku dhihi kartaa sujuudda allaahuma inii acuudu biridaaka min saqatika, ilaahayow raadi ahaashadaadaan ka magan galay xanaaqaaga, wa bimucaafaatika cafintaada ayaan min cuquubatika cuquubadaada ka magan galay, wa acuudu bika minka adiga ayaan adikaa kaa magan galay. macnaha cadaabka adikaa imaanaya adiga len kaa magan galay. laa uxsii fanaa'an calayka, ma koobi kari ilaahayow korkaaga ammaan, oo ammaan ma ku koobi kariye. anta adigu kamaa sidii baa tahay asnayta aad ku ammaantay calaa nafsika, nafsadaada intaad ku ammaantaa kuu sugan. ducaa'ul jilsati bayna asajadatayni, labada sujuudood inta u dhaxaysa fadhiga la fadhiisto wixii markaa lagu ducaysan lahaa. rabbi kfir lii, rabbi kfir lii, taa ayaad ku soo celin kartaa, waadna ku gaabsanaysaa. waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wajburnii wacaafinii warzuqnii warfacnii. allaahuma kfir lii, ilaahow ii dembi dhaafoo warxamnii ii naxariiso, wahdinii i hanuuni, wajaburnii ilaahayow ikab, wacaafinii icafi ilaahayow, warzuqnii iquudi oo warfacnii ilaahayow ikoryeen. ducaau sujuudi tilaawa, waxaa jirta sujuud lagu magacaabo sujuudu tilaawa. qofka marka uu qur'aanka aqrinaayo aayadaha sujuudda uu soo maro, sida iqra markuu aqriyo oo kale, markuu ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala kallaa laa tudichu wasjud waqtarib, waa sujuudaysaa. markaad akhriso suuratu inshiqaaq oo kale, sida ilaahay yidhi famaa lahum laa yu'minuun waidaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun, waad sujuudaysaa.
suuratu wanajmi oo kale mar allaala markaad akhriso oo aad soo gaarto afa min hada alxadiidi tacjabuun watadxakuuna walaa tabakuun wa antum saamiduun fasjuduu lilaahi wacbuduuhu waa sujuudaysaa. iyo aayado badan oo saasoo kale markaa ah waxaad ku akrin lahayd waa sujuudu tilaawa. waxaad dhahaysaa sajada wajiya liladii khalaqahu washaqa samcahu wabasarahu bixawlihi waquwatihi fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin. waad ku dari kartaa sajada wuxuu u sujuuday wajiya wejigayga liladii macbuudkii khalaqahu abuuray washaqa jeecay samcahu maqalkiisii wabasarahu bixawlihi xeeladiisii waquwatihi awooddiisa ku dilaaciyey allahaasuu wejigayga u sujuuday. fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin. inta wax abuurta ilaahay ayaa u abuur fiican. allaahuma aktub lii. waxaad kaloo dhihi kartaa ilaahayow iiga qor bihaa sujuudan aan kuu sujuuday cindaka agtaada ajaran ajir iyo abaalgud. wadac canii iiga deji bihaa sujuudda sababteeda wisran culays iyo dembi. wajcalhaa lii iiga yeel cindaka agtaada dukhran kayd. wataqabalhaa iga aqbal minii xaggayga kamaa taqabaltahaa saad uga aqbashay min cabdika daawuuda addoonkaagii daawuud ahaa. suuratu saad waxaa ku jirta in nebi daawuud uu sujuuday rukuuc ayuu la dhacay ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. nebi daawuud wuxuu ahaa calayhi salaam mid dadka kala xugmiya. 2 nin ayaa u soo gashay ayaa la yidhi in tasawaru lmixraab sida ilaah kitaabkiisa uu ku tilmaamay. nebi daawuud ku dayso ayuu dhahay ilaahay. waayo dil-ayd ayuu ahaa mid awood iyo xoog u saaxiib ah oo noqosho badan. ilaahay wuxuu u sameeyey ama uu ugu talagalay inuu xukunkaa maamulo. 2 nin ayaa u soo gashay in tasawaru lmixraab waqti aan dadka loo gelin ayay ahayd. fafazica minhum waa ka cabsaday. waxay dhaheen laa takhaf ha cabsanin ayay dhaheen. labadoodaysa ayaan nahay midkeen ayaa ka kale ku xadgudbay. nadax xugmi oo dhexdeena cadaalad ku xugmi. walaa tushqid ha gaboodfalin meel ha u iilanin. wahdinaa ilaa sabaa'i siraat. mid baa doodiisa furtoo yidhi inna haadaa akhii kan walaalkay waaye. wuxuu leeyahay 99 nacja 99 sabayn. waliya nacjatun waaxida anigana hal sabayn keliya ayaan leeyahay waa rida yar. maca daalika wuxuu yidhi isii hashaada anaa 99 haystee. faqaala akfilniihaa iigu buuxi 100 wacazanii fi lkhitaab. doodii ayuu iga guulaystay. nebi daawuud waa soo booday. wuxuu yidhi laqad dalamaka bisu'aali nacjatika. waa ku dulmiyey sabayntii uu kaa weydiistay sabaynihiisa. wa ina kaiiran min alkhulataa inta badan oo dadka wax isku darsadoo shirkoowana qaarkood qaarka kale wuu dulmiyaa. ila aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaati. inta ilaah rumaysay camal fiican samaysa maahane intaana dadka way ku yar yihiin ayuu yidhi nebi daawuud calayhi salaam. وقليل إلا إن يرقوا إلهي كنا حريستيو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه. نبي داود حمرك يقيني إلا فتني فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. ودعي ركوع أيو لدعي ونصان نقضي. sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi waan sujuudaynaa. asagana shukri ayuu u sujuuday. annagana kudayasha aan walaalkeen ku dayanayno ayaan ugu sujuudaynaa. sidaa darteed saad ayuu dhahay ibni cabbaas ka mid maaha casaa'ibta iyo waajibyaalka la waajib yeelay in lagu sujuudo. laakiin nebi daawuud ayaa ku sujuuday. annagana waa ku sujuudaynaa ayuu dhahay nebiga aw kamaa qaal. marka sidaana waad dhihi kartaa sujuudda daawuud saasaa loola jeedaa kamaa taqabaltaha min cabdika daawuuda. التشهد التحياتي التحيات لله ayaad dhahaysaa intaan atixiyaadka la waajib yeelin. dadku waxay dhihi jireen assalaamu cala allahi min cibaadih. السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان. intaa ka gadaal ayuu nebigu yidhi assalaamu cala allah hadhihina waayo ilaahay laftigiisaa salaam ahe. markaad atixiyaadka u fadhiisanaysaa dhaha attaxiyaatu lilaahi waalsalawaatu waalayibaatu. attaxiyaatu tacdiimin iyo weynayn. attaxiyaatu salaam oo dhan lilaahi bay u sugnaatay. waasalawaatu
salaadaha shantana ilaahay baa iskale. wasalabaatu naxariisyaala waan dhihi kartaa. watayibaatu waa shay kasta oo tiiba oo wanaagsan ilaahay bay u sugnaatay. assalaamu calayka, korkaaga nabadgelye ha ahaata ayuha nabiyu, nebigaanow, iyo waraxmatullaahi, ilaahay naxariistiisii, wabarakaatuhu, barakooyinkiisaba. assalaamun calayna, korkeenna nabadgelye ha ahaatii, wacalaa cibaadillaahi, addoommadii ilaahay, alsaalixiina ee fiicfiicnaa. ashhadu, waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaahu, alla xaqnimo lagu caabudoon alla ahayn inuusan jirin. wa ashhadu, waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan, nebi muxamed, cabduhu warasuuluhu, addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay. alsalaatu cala annabiyi, salliga nebiga lagu saliya sala allahu calayhi wasalam, bacda atashahudi, atixiyaadka ka gadaal. markaad atixiyaadka dhamayso waxaad ugu salinaysaa habkaa soo socota. allahuma salli calaa sayidina wa aalihi wasalam. keliya iska dhahaan dadku waa qalad. allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim inaka xamiidun majiid. allaahuma ilaahayow salli u naxariisa calaa muxammadin, muxamed korkiisa, wacalaa aali muxammadin, aali muxamedna ilaahayow u naxariisa, kamaa sallayta calaa ibraahiima, saad ibraahiim ugu naxariisatay oo kale, iyo wacalaa aali ibraahiima, waayo inaka xamiidun majiid. alla la mahdiyo sharaf leh ayaa tahay. allaahuma ilaahayow baarik calaa muxammadin, muxamed dushiisa barakay, wacalaa aali muxammadin, aalu muxamed korkooda barakay, kamaa baarakta calaa ibraahiima, saad ibraahiim u barakaysay, iyo wacalaa aali ibraahiima, aalu ibraahiimba, inaka xamiidun majiidun, mid la mahdiyo oo sharaf leh ayaa tahee. allaahuma ilaahayow salli u naxariisa calaa muxammadin, muxamed korkiisa, wacalaa aswaajihi, sawjooyinkiisa waa mid kali sali labaad oo dhihi karta, iyo wa duriyatihi, kamaa sallayta, ilmihiisa waayo saad ugu naxariisatay oo kale, calaa ibraahiima, wabaarik calaa muxammadin, muxamed korkiisa barakay, wacalaa aswaajihi iyo wa duriyatihi, kamaa baarakta calaa aali ibraahiima inaka xamiidun majiid. sidaana marka waad ugu sallin kartaa, iyo salliyaalo kale oo soo arooray kaa doonta ka qaado. allahuma salli calaa sayidina ayaa qalad ah. nebigu waa sayid sala allahu calayhi wasalam. anaa sayidu waladu ibni aadam buu dhahay. ibni aadam oo dhan sayidkooda ayaan ahay. walaa fakra, mana kufaanayuu dhahay nebiga. dadka iyo ummadoo dhan calankayga hoostiisay imaanayaan yowma alqiyaama, mana kufaanayuu dhahay rasuulka. laakiin salliga marka atixiyaadka lagu salinayo lagu jiro, waxaa mamnuuca axadku inuu dhaho allahuma salli calaa sayidina muxamed, allahuma salli calaa muxammadin. saa keliya la dhahaa sida nebiga ka soo aroortay. adducaau waa duco oo bacda atashahudi alakhiiri, atixiyaadka ugu dambeeya markuu dhaco ka gadaal, qabla asalaami, intaan la salaama noqsanin ka hor. allaahuma ilaahayow dheh, innii anigu acuudu bika, waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri, qabriga cadaabkiisa, wa min cadaabi jahannama, jahannama cadaabkeeda, wa min fitnati almaxyaa waalmamaati, nolosha iyo geerida fitnadeeda, iyo wa min shari fitnati almasiixi addajaali, masiixu dajaal fitnadiisa ayaan kaa magan galay shartiisa. maca daalika, sidaa ayaad ku ducaysanaysaa atixiyaadka iyo salligaba marka aad dhamayso, intaadan salaama noqsanin ka hor. waxaad kaloo dhahaysaa allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu bika, waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri, qabriga cadaabkiisa, wa acuudu bika, waxaan kaa magan galay min fitnati almasiixi addajaali, masiixii dajaalka fitnadiisa, wa acuudu bika, waxaan kaa magan galay min fitnati almaxya, nolosha fitnadeeda, waalmamaati, dhimashada. allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika, waxaan kaa magan galay min alma'sami, dembaabid, iyo waalmaqrami, qaamoowid, inuu qofku markaa deemoobo. dayn iyo dembi ayaan kaa magan galay. allaahuma ayaad dhahaysaa haddana, innii dalamtu nafsii, naftaydaan dulmiye, dulmi kasiiran badan, walaa yakfiru dunuuba, dembiga ma dhaafa ilaa anta, adiga maahane, ee fakfir lii, ii dhaaf makfiratan dhaafin, min cindika agtaada ahaatee, warxamnii, ii naxariisa, innaka adiga anta algafuuru raxiimu, alla dembi dhaafa oo naxariis badan ayaa tahee. allaahuma kfir lii, ilaahow ii dhaafaad dhahaysaa haddana, maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wamaa asraftu io wamaa
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. horaan usoo fasirnay waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika iyo wa xusni cibaadatika. allaahumma ilaahayow acinnii iigu kaalmay calaa dikrika dikrigaaga waa xuskaaga wa shukrika shukrintaadii wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda. waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min albukli bakhiiltinimo wa acuudu bika min aljubni fulaynimo ayaan kaa magan galay cadowga iyo gaalada dagaalkooda aan ka fulayoobo. wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min an uradda inaad ii celisa ilaa ardali lcumri cumurkiisa ugu xun heer aad sariirta ku aruurtoy dadku ku nacaano muunaga dhinta lagu dhaho heer noocaas oo kale ilaahu ha i gaarsiinin. wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min fitnati dunyaa adduunka fitnadiisii wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa. waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma ilaahayow innii as'aluka aljannata jannaan ani ku su'aalanaa wa acuudu bika min annaari naarna waa kaa magangalaa. waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma ilaahayow bicilmika alghaybi cilmigaaga qaybkii wa qudratika qudradaada cala alkhalqi khalqiga aad ka qudri badan tahay axyiinii igu noolay maa callimta alxayaata intaad nolosha iigu og tahay khayran lii inay khayr ii tahay. watawafanii ilaahow iska kay oobso oo i geeriyey oo i dil idaa calimta alwafaata haddaad iigu og tahay waadba iigu og tahee wafaadka iyo geerida khayra lii inay ii tahay. ilan mar badan bay dhimashadu khayr noqotaa. allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanaa khashyataka cabsidaada fi lghaybi waashahaada marka maqan iyo marka shaahidada labadaba. fi lghaybi waashahaada waa marka qofka keligii uu yahay iyo marka lala joogo. wa as'aluka waxaan ku su'aalanaa kelimata alxaqi kelimada xaqaa fi alridaa waalghadabi raadi ahaashada iyo xanaaqa labadaba. dadaa markay xanaaqsan yihiin kelimad xaqoo dhanba aan ku hadlin oo wax kastoo afkooda ka soo baxa ku hadla markii xanaaqa jira iyo marka raadi ahaasho ee jirtaba inaan xaqa ku hadlo. wa as'aluka alqasda qasad ayaan ku weydiisanaa waa dhexdhexaadka fi lghinaa waalfaqri taajirnimada iyo faqiirtinimada labadaba. dadaa markay qani yihiin xoolaha ku cayaara oo sagareed ku cabo oo naagaha siiya oo xumaan ku sameeya oo kala daadaadiya. maca daalika qini iyo faqriba dhexdhexaad ayaan ku weydiisanaa. wa as'aluka waxaan ku su'aalanayaa naciiman naciima laa yanfadu aan dhaafa'ayn. wa as'aluka qurata caynin ilqaboobsi laa tanqadicu aan go-aynin. wa as'aluka alridaa bacda alqadaa ayaan ku weydiisanayaa. waxaan kaloo ku su'aalanaa raadi ahaasho oo bacda alqadaa. wa as'aluka alridaa bacda alqadaa'i wa as'aluka barda alcayshi bacda almowti. wa as'aluka waxaan ku su'aalanayaa barda alcayshi nolosha qabowgeeda bacda almowti geerida ka gadaal. wa as'aluka waxaan ku su'aalanaa ladata nadari daymo ayaan ku su'aalanaa macaankeeda ilaa wajhika wejigaaga la arko iyo washawqa ilaa liqaa'ika hilow markaa loo hilooba la kulankaaga fii gayri daraa'in mudira dhimitaan iyo mashaakil aydoon markaa lahayn iyo walaa fitnatin mudillatin fitna markaa mudillo ah oo markaa wax dhumisa la-aanteeda ayaan ilaahayow ku weydiisanayaa. allaahuma ilaahayow zayinna waxaad nagu qurxisaa biziinati liimaani iimaanka ziinadiisa nagu qurxi. wajacalnaa ilaahayow waxaad nooga dhigtaa hudaadan hanuun oo muhtadiina markaa lagu hanuuno. waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma innii as'aluka yaa allaahu allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa yaa allah ilaahayow biannaka alwaaxidu inaad tahay waaxid alaxadu ee keligiis ah assamadu umuuraha loola qasda alladii kaasoo lam yalid walam yuulad lam yalid aan dhalin walam yuulad aanana la dhalin walam yakun lahu kufuwan axad axad kufu ah oo u dhigmana uusan lahayn adigoo ah ayaan waxaan ku weydiisanaa an takfira lii inaad ii dhaafto dunuubii dembiyaalkayga waaya innaka adiga anta alghafuur alla dhaafid badan ayaa tahay alraxiimun ee naxariis leh. allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa bianna laka alxamda
bianna laka inay kuu sugan tahay sababteeda kugu su'aalanayaa alxamda mahad laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee ilaah kalena uusan jirin waxdaka adigoo keligaa ah laa shariika laka wax shirkina uusan kuu sugnaanin almannaanu allaha mannaankaa ah yaa badiica asamaawaati samaawaadka allaha bilaabay abuurkooda iyo waalardi arladow yaa daljalaali waalikraam jalaalka iyo weynaanta iyo karaamada midka u saaxiibka ahow yaa xayu yaa qayuum allaha noolaan jiray haddana noolaana doonow yaa qayuum allaha taagan ee u taagan inuu koonkiisa maamulow innii as'aluka aljannata jannada ayaan ku su'aalanaa wa acuudu bika min annaari naartana markaa waa kaa magangelayaa. waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma innii as'aluka ilaahayow waxaan ku su'aalanaa biannii anigu ashhadu annaka ant waxaan qiray inaad adigu tahay anta allaahu laa ilaaha ilaa anta allaha keligiisahoo adi meehee mid kale uusan jirin alaxadu asamadu allahaasoo axad ka ah assamadu ee wax loo bandhigto ama sayidka ah alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad kaasoon wax dhalin lana dhalin kuf iyo wax u dhigmana markaa uu jirin. wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.